واريا السلام عليكم. عليكم السلام يا الحمد لله. ايه في عنا انا كاساش قلش هردا إلى تكتساك. يا هردا إلى تكت حلا وقت حمس حدا. ايه هردا إلى تكت. هذا وقت 5 ساعات ها هذا هو ضفرتان ها لا فرق مسجرة. هردا إلى تكتلا. وان قرت هردا كل يرا تagtay صح. شقة هذا قش ما أنت. bal hada bartan ku qor hurda yara tagtay sida qorantaa halkan ma aragtaa hurda yara tagtay ku qor sida qoranta markaan إنه حكوده فمن. taa qor su'aafka kamalihiid hurda yara tagtay bartaa ku qor iyada qoraala ما أغنيها ما فهمني. inagu mataan kan ku balansanay shaqada soo gasho ماي. imsa ma qasha ka ma hada بص والرماء اسكجرينا ee waxba dhiba area dhanka family way waxaan ku weydiiyay meeshan maqaayad baa ka wadi soo dhaqtar hospital way meesha hospital soo baa hospitalku markaa muxuu kaga duwan yahay meheradaha kale ganacsiga de meesha dadka lagu daaweeyaa soo ma dad dhan waxa weeye inuu ajashooda iyo naftooda waxa weeye qofkii aan ilaahay ka qaadaynin inuu badbaadiyo waxa weeye ku dadaalaa soo ma صح dadka inagu meel xanuun horseednaaba oo aynu waxa weeye dawooyin aan isticmaali karin iyo dawooyin aan lagu tala gelin iyo waxyaabaha aynu siino mise waa inaynu waxa weeye xanuunkooda la tacaalo maxaa maqashay waxaan maqashay horena horta ma dadka xanuunkooda la tacaalo inta la tacaali karnaaba mise waxa weeye inagu dawooyin aan iyaga lagu tala gelin aynu siino oo waxa weeye aynu noloshooda inagu markii u laqsano waa sidee laga horraado meeshan labada mas'aliin mid joognaay inaynu dadka wax weey dawooyinaan iyagu xaq u ahayn in la siiyo ama aan wax weey qaadan karayn ama aan lahayn ba inaynu siino oo inagu xanuun u horseedno laakiin waan u sameeyaa ana saase waad ugu dhaqsataa waxaan ka gaar karaa waan ka gaaraa inda dalaalay dadaalkaaga musaasa saymaa aan dhaqtar baan ahaa soo jaamacadka maad soo qalin jirin jaamacadda ka soo qalin jirin simigeed hoosti biye mayed hadda xagee ahayd Kawasaala University waxa weeye laba khalad lama wada galo khaladka koowaad aniga galay anigu aan shahaadooyinkaagii iyo waraaqahaagii iyo dhigmatigaagii saxda ahaa adigu aan ila imanin ayaan waxa weeye shaqo ku siiyay soo aad garatay ma maantana waa taa gaadhay heer dadkii aad dawooyinka u qortay ka soo cadanayaan hadda ma garatay waa imisa qof toddoba qof ma marda ma dhacaysa maxaa mar dambe dhacaysa waxa weeye dad dhan baad waxa weeye ilaahay baan dilin noloshooda inaad dhaafsar ugu tala gashay anigu horaan kugu sheegay markii ugu horeysay aad iimanaysay lambar 1 fastigiiba waxaan kugu wuri meeshan waxaan noo joognaa waxa weeye dadkeena inuu daweyno xanuunada inta la tacaali karnaa in la tacaalo inta ilaahay dawo iyo dawo inooga dhigi karay inaynu dawo iyo dawo u noqono taas waxa garatay ma صح meesha waxa lagu hayaa waxa weeye waa dawooyin waxa weeye kala nooc kala duwan صح qofku waxa weeye ma wada qaadan kara dawooyinkan oo dhan waxa meesha yaalaba waxa weeye kana qurux badan oo qaadan moodan karta qofka sida dharka loo gato uma geli karto waxaad garatay ma laakiin se waxaad u gadi kartaa qofku waxa uu doonayay waxa uu qaadan kara iyo awoodiisu waxa weeye la tanka ayaad siinaysa kiniinaan la awoodahayn damasi kasta qof binaadmi aduguna waxa weeye iga geebaad noqoto waa teeda labaade xisaabahan heedhe aasoo doomar isla ma saawada shaqada la isku doo marmaray saas isku doo martaan adigu horta waxa weeye aqliga xitaa eer baad ka tahay qof saaxiib aqliga baan ku moodaya aqliga xitaa eer baad ka tahay wixii aad iibisay computer-kan aad gelinaysaa waxa weeye haddii leeyahay wixii aad lacag meel dhigtayna waxa weeye gaar baad u qoraysaa soo dhumti oo saxiix halkan kuma jiro mawaalanta adigu qor aan ku siiyanayo inta
qaladkaas mar dambe soo laabanaysa horta aniga wixii iga maqan iminka iga maqnaaday adduun iyo wixii lacag kugu maqan iminka aniga saaha iga maqnaaday waayo adduun waxa ma aha wala helaalo waaya laakiinsi caafimaad lama helo laba waaydi ilaahay baana keenay ilaahay baana qaaday soo gartay ma qof dambe oo waxa weeyaan caafimaadkiisa ku soo duulayso oo dawooyin khaldan oo aan xaq lahayn aad siinaysan ma jiri doono walaal soo gartay ma iminka sidii aad igu timiye waxa weeyaan shaqada kugu siiyay baad iga taysa laakiin kaasaad ka baxaysaa soo kama joogin ما بوساس دين ماشي دال بير كما درنا كامية من لوج با ماشي ما در با كايا بس لكن هل مران قلب قلا هل كمر قفن بنلوشي سو خمار قفن ما مردن با horta naf ma la soo celin karaa ما saacada kama soo qaadiyado kugu baxay ajali la soo celin karaa ما baxdaba shaqo kale ma haysto laakiin bas aniga shaqada kale maxay galay dadkii hudheelada taa saar halka marniyo ina kala kaxee أنا أقول هجاجس إيه وإذا ما أنت قال لك جراك أنا هبين كده وحني إيه لا يعني ما أنت أقول جوك سان أقول هجاجني حضرت أنا وجدف عليه hagaajin oo yaa ujeeda cunugan fiir wixii dhan uu sii sutura yarow wara maxamedey ka ma ku dhacay ku dhacbo maxba maxaa maanta xididada banaanka waaye bismillaahi maxasan kan soo jifay kan ma soo saaro soo ma ku dhacay sheeg maxaa buu ya هندعت وجدودين بمحكو دعاء تلفونك ما كبركسنت هي محكو دعاء مرك shaqada laga soo fiijiyay يا رب دقيلك محسن فريسورت عاد فريسور انت ما فديسن كريم هم حسب شقلك على سو فيجي سو شقك على سو فيجي كراسي ما لو دردرا ما صب waxaa la sameeyaa maandaayna loo maalandaay daahitaan kelimo la isku burnaay shaataayo boo maxaa jira ana taas bas la wax kala mid ah wiil kale uu keenay umaleyn hadda shaqo la'aan tahay walaalkiisa shaqo laga qoray meesha asoo walaalkiis ma hadii la dhashto ma jooga bay qaraabadiis mu keensan umaleeyaa qalbi laakiin boo saamxa hadda guriga ma ku soo noqotay bisma guriga ma fadhiinay marka macjiso waay hadana waa aragto hooye walaasha hadana la keenay laakiin sabab laakiin shaqada laga soo diri karaa fiir ninkaas ana u tagay koodhe ka dooni waa u tagaa because sabab shaqada fiir walaalka indiisa u guduuteen fiir inta shaqada asaa iska leh aduleeyana qofku rabo soo burinayso ama eeg fiirhe lama dagaal kartida waa la dagaali karaa xaqa u leeyahay si ala dagaal hadii shaqada asaa iska leh qofku rabo hatta haduu rabo ganacsiga dhan uu iska xiri karaa ma ila ka ma ka soo buri karo shaqada maxaa dhimarka u tagto mar waxaa dhahaa sabab walaalkii shaqada uga soo burisay ii sheeg maxaa way keenay inaad shaqada ka burisid because wax walba maxaa la jira miska dhaca marta sabab ay u dhacaan taas waxba kama qaban karsidaan uma leeyahay sababta shaqadaas dhib ma laha shaqadaas waa kugu cilaa da shaqadaas waa xitaa shaqa yaanya baa ku geeyay shaqa un baa ku geeyna aad guri ma fadhinayso because hadii kale hooyadee ku qeynay mideeda kale xataa ani waxyaabo kale oo dhan ogaada da ogteedii kale maxaa ogaad fadhiiso fadhiisan karaan maanta ma fiiri hooyadii darad may ku dhino telefonka xadde may kugu qaylinino waxaas dhan ayada samaysa magtee ayada samaysa telefonkii inay qaado aljaabka ay gelis markaas soo qabaysanaysa maxaa sabab waxay dhahday naagii la hadlaysa amal iyo shaataana isku diraa rabaa ay dhahday anna marba ani adina isku dhacno kas ana walaalkay tahay qof aan hilibkayga isoo la dagaala ani markii koowaad waa yaabanaa soo shaata telefoon ku qaaday shalay anoo yaaban oo hooyo inta isla fadhino waxa ku leeyahay boo shaqada ka imaaday intuu iska ma waa baxay agtaga ku dhaw telefoon soo dheh marka ka taganaay la hadlayso markaas dhahday
tiirad waxaa ka celi lahay wiilkaas adana hadda shaqadeeda ka soo tagtid hadda maxaa noo sii yaalaya marka waa taqaanaa shaqadu dhibka jira waxaa waa ma taqaanaa hooyo iyadoo hadda dhibkaas dhan sameynayso aa arkaysid wax walba adiga kugu sameynayso hadda maantana shaqadii kasoo tagtay maxay sii sameyn kartaa hadan hooyadaa safar aada shaqo see nagala soo fiijinaynan ciddaaba arkaysa waxaa ka jira shaqo qof maxaa fiican ma arag meesha isbitaal waaye maskaxda inaad degnaato aad nisato markaa imaato xaggaa dad buuq kugu soo dili maanta dhana taagneed intaa imaani buuqaada kugu furi maxaa la sameyn marka laakiin taleefonka xataa lagaa qaatay maxaa la dhihi jiray ama hooyadii la ka dambaysaa walaalo maxaano hooyadii wax walba ka suurtoowaan moogtee hooyadaa waxaa u dhiman inay naftay qaadata waay hadda su-aalaya gabadhan hooyadaa dhashin gurigaa la keenay taasna maxaa keen horta tan hooyadaa dhashay adaab qaati bilaa laga joogo aabbe ku dhalaa hooyada celcelis kaaga hay gabadhaas yaa ka celi rabo marka su-aal waaye dad kale aniga gabar ma is anfaceenaba aan tatal gabadhaas mabrab guriga waxaa isku darsanayna jirin ani ayada ani mabrab iyo gabadhaas inay guriga joogto ani adiha walaalkay taa aabbe ku dhalaa kan ayada maxaa isku nahay wax isku manihin ana awood ma lihi qof aan ku dhahayo guri ma joogkartid iyo waa joogkartid laakiin se wax walba taa dhici karo fahamte inuu dib ma lahan taas tan guriga waa tan guriga ma soo hadli mar ya waa u tagaa ninkaas inaa u tagaa weli indhaha faraag soo gelin soo walaalkay shaqo uga soo buri karaa laakiin se shaataayo haddaa qaladka adiga lahaatid oo la dhaho qaladka asagaa leh kitaabka inaa iskoobahan kuu qaato soo kuu garaaca iskoobahana kugu jirto qalad inaan gelayno ogta adiga ana waa ogaa laakiin se hadhow qalad shaataayo waxa ina cadow iska fara badan ba okay ma hadna cadow kugu noqday miya mahad maamada arkaysaa horta qaado dharkan soo gudaha gal qabeeso oo maxaa la dhihi jiray jikada gal cunta diyaarsanay cumbal saan isku dhaan oo nasabal maanta saacad 24 hours cuntana marribi nafaya laakiin walaalkii soo shaqadooda soo burin karaa ninkaas asma oga ma ninkan inuu seedigiisa ma ka xishoonaaybo shaataana ma dhigi karo ninkan seediga waa